wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shir Saylici oo maanta soo gaadhay magaalada Boorame caasimadda gobolka Awdal ayaa wuxuu si rasmi ah u dhagax dhigay xafiiska wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ay ku yeelan doonto gobolka Awdal. xaruntan dhagax dhigga lagu sameeyay xafiiska wasaaradda beeraha ee gobolka Awdal waxaa halkaasi ka hadlay maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaana yiraahdeen run ahaantii mudane madaxweyne ku-xigeen waa ballanqaadkii xisbiga kulmiye uu fulay mar haddii wasiirkii beeraha uu dambeeyay maanta iyadoo kaambeenkii bilaabmayaan dhagax dhigayno sida fiican ee gobolka uga shaqeeyay ama degmada xukuumadda uga shaqeeyayna way muuqataa runtii waa arkaysaan waxa weeyaan waa waxqabadka ballaaran ee aan la soo koobi karin ee xukuumaddani intii ay xilka haysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ku tallaabsadeen ama xisbiga kulmiye aad iyo aad baan runtii aan ugu mahadnaqaynaa dadweynahana waxaanu leenahay war ka abaal celiya geestooda waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha tiknoolajiyadda ee cilmi-baarista iyo wasiirro kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxaanay dhammaantood batibaaxeen gobolkii ugu beero badnaan jiray maanta loo dhagax dhigayo oo xukuumaddan uu galwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo Cabdiraxmaan Saylici oo madaxweyne ku-xigeenkii maanta nala jooga in maanta dhagaxa loo dhigo ilaahina waan ugu ducaynaynaa inuu inoogu barakeeyo dawladdana waan ugu ducaynaynaa dhagaxa maanta noo dhigtay madaxweyne xigeen waxa maanta noo farxada inaad noo dhagax dhigto xafiiskii beeraha ee gobolka Awdal waxaana noo sharafa mudaxilaadkii madaxweynaha haddaad madaxweyne xigeenka u tahay inta una dhammaan anna sharaf gaaraya inaan ku guulaystay in gobolkii Awdal xafiis wanaagsan oo ay ku shaqayn karaan in laga dhiso. ugu dambeyntii waxaa munaasabadani soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaanu ka dhawaajiyay sida tantii farxad weyn bay tahay inaan halkan maanta aan ka dhagax dhigo xafiiskii beeraha gobolka Awdal. haddaan taariikhdan ku noqdo meeshaan arkaysaan waa sheegay wasiirkii waxa lahaan jirtay wasaaraddii beeraha lahaan jirtay anigoo da'yar oo 3 sano sanadkii saddexaad markaan shaqada bilaabay 28 waan ahay injineerka dhisay 5 guri dhisay meeshii aan dhisay ina maanta ay laga dhisayo iminka aad iyo aad baan ku faraxsanahay wasaaraddan aad baan ugu mahadnaqayaa inuu soo heshay in xafiiskii halka dhisto gobolka oo dhagax dhigana insha Allah isku soo duuba waxay noqonaysaa markii ugu horeysay xafiis noocaaniya looga yagleelo wasaaradda beeraha gobolka Awdal. Xuseen Atiye Jama Xuseen Gafani telefishinka caalamiga Universal magaalada Boorama.